xisbiga wadani waxa uu soo gudbiyey 22 bishan Maarch qoraal ah codsi in xilka laga qaado oo la kala diro komishanka doorashooyinka qaranka iyaga oo ku duraya doorashadii madaxtooyada ee guddiga doorashadu qabtay 13 November 2017 komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay fuliyeen dhammaan xeerarkii iyo habraacyadii sharci ee doorashada waxay dhiseen dhammaan guddiyadii iyo xafiisyadii hirgelin lahaa doorashada oo waafaqsan xeerarka doorashada waxa ay ku heleen ammaan iyo bogaadin caalami ah oo goobjoogayaashii dalka iyo dawladdiisaba ahaa ka marag fureen inay ahayd doorashadaasi mid daahfuran oo xor iyo xalaal ah xisbiga wadani iyo xisbiga kale ee mucaaradka u cid labaduba waxay ogolaadeen oo ay aqbaleen natiijadii ka saxday doorashadaasi saadabti waxaan u arkaa doodani xaqiiqada inay ka fog tahay sharcigana baalmarsan tahay laguna carqaladeeyo hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliland sidaa darteed waxaan u celiyay xisbiga wadani jawaab ah in ay codsigaasi aan sharciga waafaqsanayn